السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان داودياشيدا qiimaha iyo qadarinta mudan meel kasto aad joogtaan iyo mar kasto ay idin tahay waxaan idin leeyahay waqti wanaagsan waxaan ay hodman cadceed geela waxaan mar kale idin ku soo dhaweynayaa channelkayga hodman show iyo walo barnaamijkeena weydii galabta waxaan idin hayaa su'aalo aad u xiiso badan ila socda waa tahay adoo ku bilaabay magacaaga Cabduqaadir Macu Xaaji Daadiro ku magac dheer waaw ma sha Allah waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su'aalo ku saabsan afka Soomaaliga ay way weydiin kartaa ويدين إرجع اللي يراهد سؤال يجواب لبضاس إرجع بروح أنا شيء سؤال شاس وكل شيء لبض لكن أدينا لبا أي شيء جسا سكودية سؤال وحواي ويدين جواب وحواي شيء تان هذه هي لبضاس جواب لبضاس أساسا كان جواب لبض أنكو ويدينا وحا تدرو سؤال شكرا كويدين وحنا قناة خلطك وجوينا نفط هذا كجش أنت أدونك كنولي خلطك وينا أنت أدونك أنك قلي نفس الدين أهان صلاة جماعة الدكون ويا صلاة جماعة الدكون ها أدبض ما صدق حد ويدينا أنا لو سؤال لهم كويدنا سؤال شكواد وحنا روانا أي شيء كت صنع في الصومال وحلو يرادو سنة iyo waxaan ku weydiinaa khado af Soomaali wixii lagu dhaho soo fakaraya magarnay aad u maasantahay adoo ku bilaabay magacaaga waxaan kugu soo dhaweynayaa barnaamijka weydii walba channelkayga hodman show waad ku mahadsantahay magacaygu waa Asad Cabdulkariim asad aad baad u mahadsantahay waxaad ii sheegtaa bal khaladkii ugu weyn oo nafsadaada ka gashay khaladkii ugu weyn oo nafsadayda ka galay waxa ay ahayd anigoo iska reetabareyd ayaan jeclaaday gabar Kanada ka imaatay sidaas awgeed ay haddana dhulka igu jiiday markaas khalad inaan ka galo waaye maadaama waxaan jeclaaday meel la jeclaanin ayaan jeclaaday gabar Kanada inaan jeclaan lahaa anigoo gabar isli iska joogtay inaan jeclaaday ahayd gabar isli joogtay gabar Kanada joogtay labadoo tii calaf ku sulan ama isfaantaan waas laakiin dhulka igu jiiday gabartii Kanadiyaanka ahayd adigoo oo Nairobi joogto oo haddana isli oo chaafo badan aad dhex taagan tahay sababaad ii jeclaatay dhahday marka taas ay igu darnay tartiis waka arintaas waxaan rajaynayaa dad badan inay maaragtay waana ka qaadan doonaan aysan sameyn doonin abo Alexander Satin waxaan ku weydiinayaa su'aasha kale oo aan ku weydiinay waxay noqonayaan ama loo salaan suuqa daray waxaad sheegtaa waxa afka Soomaaliga lagu yiraahdo su'aal iyo jawaab su'aal waa qofka wuxuu ku weydiinayo jawaabna waa waxa aad ka jawaabaysa adiga ahaan oo su'aashii markuu ku weydiiyay wixii amal aad jawaabtii aad siinayso waaye aad maasan waa tahay daawadayaal waxaan si kadisa ku kulanay aragsan oo ah gabar Soomaaliyeed oo YouTuber oo aad loo jecel yahay isla markaas ka mid ah ganacsatada xaafadda Isli aragsan adoo gaariga saaran su'aashan ku weydiiyay ma doonayo laakiin balse aad guud ka arkaare Thank you baby ما شاء الله تبارك الله فرحت هذا ugu faraxsanaa wallahi bila ma sha Allah thank you baba macaan sidoo kale aniga inaan ku arko aad maanta ugu faraxsan si adoo inta maraysid هيا بل أصحابتي السلام وحبا لقى ما خبن كرو ما شاء الله تبارك الله هود من عد عيادة ما أنت ما شاء الله جدك سؤالي أدونك ودو كم لا يحكي راكو راجاري وأوجس ودقي لكن واحد سؤال وهي وقتها حتى واصل واحد بيالي وش شوية بل محي يدير بتاع ولا المعان وحن كويديني أنا أفكر هويو أما لغة الصومالية قاعد كشك السؤال إيه جواب أوكي وحأم لي مركز أصل هذا هرت لمبر كذا في صومالي كشك لكن سؤال يجواب ما لقرأ أنا في صومالي هم كشك اوكي سؤال يجواب لابد الصومالي ما هم يا صومالي ما هن way Soomaaliyeed laakiin asalka Soomaali ma اوكي سؤال horta waxa u garanayaa af Soomaali ahaan hadii su'aal ahaan weydiimo maxay ka dhiman marka jawaab su'aal weydiimo iyo waxay noqonayaan markaas weydiimo iyo warcelin aad baad u mahadsantahay aragsan hal su'aal oo kale ayaa barnaamijka daba taalo aan ku weydiinayaa waliga iyo allaha khaladkii ugu weyn oo naftaada ka gashay استغفر الله والسجاد ويا بكي حتى واحد أحسن تاجام كدرتي سجاري كانوا دقاقرة وما فهمت خلتك قوينا ونفتي إذا أكجلي إنا قف إجا ما كان أنجع على هذا خير يا بركة كورة شينا يا وكسبتنا يا إلى سنة تعالى كنا ودقي ما شاء الله سعودي الله بيو هاي وحن كوسر وينا يا برامج كي ويدي ولا بهضم الشو هاي الله كوبلا بس مقعد فارح علي باللي هذا رئيس ليبيا هاي الحمد لله رب العالمين هل كان كل نول هاي ما سنت وكفر حسنا أن قربت هل كان كولا كل ماي سأشان كويدين وحنا قلنا سخلت كي وجو وين نفط هذا كشيء أنا قلت نفتي إذا كجلا
ma garanaya qaladaan ka gale waxaad af Soomaali igu sheegtaa su'aal iyo jawaab su'aal iyo jawaab oo af Soomaali su'aal waa su'aal iyo jawaab af Soomaali saasaan u aqaana wax kale adoo ku bilaabay magacaaga magacayga Cadnaan Xasan Axmed عندنا وقت بدو ما حسنت وكفر حسنا هنا نقرب تسلك كلنا وحن كوساشن كويدين وحنا قلنا خالد كي ugu weynaa aad sadad ka gashay khaladkii ugu weynaa nolosheeda ka galo waxay nafsadeeda waxay tahriib oo ku dhiirtaan oo nin dhalinyaro wax barana saas darteed khaladkii ugu weynaa galo tahriib adiga xagaana waxa ka raacay doon marka raacay waxa tagay wadan loo Tanzania because passport ma lahayn waa ka sii baxay adiga xiraal lagu xiray adiga qaladku weynaa gala tahriibta seed kadib wad ka shalayso tahriibina ficnina ogaa Soomaan waan ka xumahay arintaas waxaan rajaynayaa inaad mar dambe ku dhiiran doon su'aasha kale aan ku weydiinay waxay noqonaysaa waxaad af Soomaali igu sheegtaa su'aal iyo jawaab jawaab waxay noqonaysaa wax qofka uu su'aalay jawaab waxay noqonaysaa af Soomaaliga su'aal iyo jawaab su'aal waxa waayo kale macnihii af Soomaali su'aali jawaab ma ku sheegi karo laakiin af Soomaali ku sheegi kara af Soomaali su'aalina jawaab waa ma santahay waxaan ogahay inaad sajid aad ma haya walaal aad ku bilaay magacaaga raxmo ma santahay raxmo waxaan ku su'aashan ku weydiinay waxay noqonaysaa khaladkii ugu weynaa naftaada ka gashay qof baan sheegan wali si doo socda baan ku sheegay okay runus ku badashay malaga yaabaa dabcan way dhici kartaa weydiinaya laba su'aal kale aad u fudud iyaguna isdaba yaalaan kala haraynin waxaad ii sheegtaa su'aal iyo jawaab waxa lagu dhahaa afkeena hooyo Soomaaliga su'aal iyo jawaab afkeena hooyo su'aal iyo jawaab ma sama wax karta lagu dhaha ma garanayo ya qofkaaga faa'iideedeesh ka war ma diiday assalaamu calaykum soo dhawow وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته magacaaga أويس عبد الحسن Ways Cabdi Ways waxaan farxad galabta halkan inaan ku kulano waxaan ku weydiinayaa khaladkii ugu weynaa oo naftaada ka gashay aniga waxaan xasuustaa hadda nafteeda aniga aan qalad aan ka galay waqti waayahan dambe waa si fiican aan isku ilaalishay maxaa yeelay waa qofku inuu isxakameeyo asaga looga baahan yahay hadduu qofka isxakameeyin qof xakameeysa badartay malaha waliga naftaada qalad wixii adiga 20 sano wixii ka horeeyay waa iska jirjiraan dhacdhaca waa iska jiraa hal iyo laba adoo soo koobay oo aan maaragtay xasaasinaysan maxaan ku soo koobaa hal khalad baan qalad Soomaha waagi aniga aan yaraa dugsi diidaan ahay hooyaday iyo aabahay dugsiga way igu qasbi jireen markii xoogaa aan soo weynaado oo soo haqankaagana anaaba isxilqaamo maaragtay dugsiga anaaba iska jeclaada waagi hore waa dugsi diidaan ahay qaladkaasaan gal wax kale ma aan iska ogi assalaamu calaykum hal mid ayaad waxaan ku weydiinayaa waxaad af Soomaali noogu sheegtaa ama luqadda afkeena hooyo noogu sheegtaa labada eray oo ah laba su'aalood oo ah su'aal iyo jawaab wax afka Soomaali lagu dhaho Soomaali su'aal waxa lagu dhahaa waa su'aal jawaab waxa lagu dhahaa jawaab waaye waa isla socdaan kala ma harama su'aal iyo jawaab waaye assalaamu calaykum haye halkan waa wax ka dhacay marka waxaan ku weydiinayaa ana ku salaabtay su'aal iyo jawaab maxaa lagu dhahaa afka Soomaaliga had su'aal iyo jawaab waayo wax kale aniga lagu dhaha ma garanayo baldankaaga wallahi aniga naftirkay ma garanayo su'aal iyo jawaab leh marka khaladkii ugu weynaa naftaada ka gashay ninaan rabin aan guursaday see qof kula noolaan kara qof uusan rabin maba la noolaanin waxaan la noolaa maalmo هذا يقول بلا بي مقعد waxaan kugu soo dhaweynayaa barnaamijka Hodman Show iyo waliba weydii aad oo mahadsan tahay marka wakaad soo daaya waa tahay su'aashan ku weydiinay waxay noqonaysaa khaladkii ugu weyn ee naftaada ka gashay khaladkii ugu weyn nafsadee ka galaa ama ilaahay aan ka galaa macna kala saar way kala tahay nafsadaada wallahi nafsadeeda khaladkii ugu weyn aan ka galaa amal ah nafsadeeda khaladkii ugu weyn waxyaalo badan way jiraan laakiin hal waxaan kaaga soo qabanaa halka waxaan kaaga soo qabanayo معناها واح يعني عمل أنا أنكشلاي واي ما قرأت ويعني قلت أنا أنسميه واي لكني قلت كيس أنسميه قف كلا يكون هذا معنا ما قرأت وكا قلت محنا وحش قلت فاهم كرتا قف بالآذن اللي موقت الدنيا اللي جوجا الدنيا اللي يقولوا لي هاي
marka qof kala dareen u qaaday asagana dareen u qaaday markii qofkii yani xumaatiba weyn aan dhaxmartay kadib marka isoo xasuusto maxaa la yani inaan qalad aan galay oogeed sidaas waa aad baan uga xumaa arrintaas waxaan rajaynayaa mar dambe inaad samayn doonin ma wax dhibaato ma lahan waa caadi waxaan hadda aad baad waxaan su'aasha kale aan ku weydiinaya waxay noqonaysaa waxaad afka Soomaaliga ku sheegtaa su'aal iyo jawaab su'aal iyo jawaab dewaab Soomaali maxaa oo af Soomaaliga la ii sheegtay Soomaa wax kale ma yada jirto su'aal iyo jawaab macna kale uma aqaan taas le waayo oo ka macna kale uma garana sida quruxda badan aad barnaamijka aad u maasantiin waxaan la kulanay ninkan dhalinyarada aad u jeedaan oo dad badan oo reer Nairobi garanay xaafadda Islii ay aad u garanayaan balse dhow magacaaga ku bilow magacayga Maxamuud Maxamed Safri waa taksiliyaasha oo gaari soo jana ma sha Allah tabarakallah saashan ku weydiinay waxay noqonaysaa khaladkii ugu weyn aad nafsadaada ka gashay wallaahi qalad aan galay nolosha nafsadeeda muu malina inay jirto ma jirto aad isku ilaalisa waxaad afka Soomaaliga ku sheegtaa su'aal iyo jawaab su'aal iyo jawaab waa Soomaali ayaga su'aal iyo jawaab su'aal iyo jawaab dii af Soomaali Soomaa ayaga Soomaali yes af Soomaali ma laakiin way Soomaali ma Soomaali waa aad adaan badan sida quruxda badan aad barnaamijkeeda ay magacayga waxa la rabaa Macalin Umar Ibrahim Xamari ma sha Allah tabarakallah waxa farxad inaad barnaamijka ka qayb qaadato waxaan ku weydiinayaa hal su'aal waxaad noo sheegtaa khaladkii ugu weyn aad nafsadaada ka gashay qaladkan sida ka galay arso waxaan iga afiyay waa salaad ma ka dahaa salaadan ka dahaa salaada waxaad af Soomaali igu sheegtaa ama afkeena hooyo aad igu sheegtaa su'aal iyo jawaab su'aal iyo jawaab af Soomaali aan ku raadiyo waxa waaye su'aal wixii lagu su'aalo waaye jawaabna wixii lagu weydiiyo wixii aad ka jawaabtid daas waa tahay daawadayaal intaan kusoo gabagabeynaya barnaamijkayga weydii anigoo Hodman Cabdi Galla ayaa idin la socodsiinayay su'aalaha barnaamijka waxay ahaayeen waxaad noo sheegtaa khaladkii ugu weyn ee naftaada ka gashay iyo waliba waxaad afka hooyo ku sheegtaa ama afkeena Soomaaliga su'aal iyo jawaab oo ah weydiin iyo warcelin intaan ku kulmay barnaamijka waxaan ka tagnaa sidaas iyo nabadgelyo kaamiradan quruxda badan waxaa duubay walaalkii Arizona